yaaraya armu been ku sheegaya oo qalbigood ogtahay boqolaal su'aalood oo kala duwan ayuu isweydiinaya laakiin waxaan hubaa inaad tahay qofka kaliya ee igu haboonayd ee aan nolosha la wadaago yacni kuma dhihi karo buuri waan ku jeclahay kaamana maarmo laakiin waxaan ogahay inaad tahay qofka kaliya ee noloshayda ku haboonayd ayaan ogahay intuu ogyahay kaliya ayuu u sheegay noloshayda haboonayd ee aan nolosha la wadaago anigu kuma qasbayo oo go'aankaaga ayaan sugayaa yacni wax qasab la yidhaahdana kuguma lihi laakiin waxaad ii go'aamisana waan ogolahay yacni markaad gabar ku tiraahdo walaal waan ku jeclaa waan kaa helay dee ilaa ama dee mudday ka odhan waan soo fikirayaa ama waqtigaa isug bay ka odhanoo ballan bay kuu qaban adiguna inaad sugtadii waad ku qasban tahay inkastoo aad tahay dee naf wax jecel oon marnaba aan dee sugi karin fariintaa boqolaal su'aaloodna aad isweydiinaysood leedahay talow maxay ku odhan talow may kugu adkayn talow may kula qaban jacaylkaasoo way ka aqbali adigoo isweydiinaya su'aalooyin fara badan oo qalbiga ka sheekaysanaya warwar iyo fikir badanna uu ku haleelayo haddana waxa tahay waad ku qasbantahay inaad sugto markaas ila soo hadal waxaan la wadaagay arrinkii saaxiibtay yacni saaxiibteed bayadna arrinkii la wadaagtay waxayna igu dhiirigelisay inaan aqbalo yacni saaxiibtayna way igu dhiirigelisay inaan aqbalo oo waxay igu tiri walaalka aqbal dee wiilka ha ku adkayna aniguna dee waan aqbalay waxaan xiriirkii bilaa khilaaf naga dhexeeyey muddo 9 bilood yacni jacayl aan muran iyo isqaqabsi lahayn isjijiidasho lahayn laakiin respect iyo kalsooni ku dhisan ayaa waxa uu ka dhexeeyey muddo 9 bilooda jacaylkaas ay wadeen muddada 9 bilood talow muxuu noqon doonaa ma jacayl farxadeed mise jacayl naxdin lah waxaan filayaa inuu jacayl 9 bilood soo socday inuu yahay jacayl aad u ballaaran oo farxad ku salaysan qofka kalena uu dareemayo oo uu ka fahmayo qalbiga isagoon ereyga ka odhan wee afkiisa ka soo bixin erey isagoon maanta odhan waxaan u baahanahay oo qalbiga ka dareemayo waayo markaad qofka si daacad u jeceshahay ama ay kalsooni kugu jirto kalsooni uu nigala dhaxeeyo xataa boqolaal waxay dadku ku sheegaan ama nacabku ku idhaahdaan waxba kama soo qaadaysid kaliya waxaad ahaanaysaa qof hore u socda qofka hadalkiisa leh ku cad waxay dadku sheegeen xataa waxba kama maqashid noloshana taas ay ku salaysan tahay waxaan rajayn doonaa inay noloshooda farxad ay ku dhamaystaan oo reereyn iyo wanaag ay ku dhamaystaan 9 bilood jacaylkay soo wadayna waxaan rajaynayaa inuu mid farxad leh u ahaado oo ay farxad ku dhamaystaan 9 bilood run ahaantii aad ayuuna isugu faraxsanayn mar walbana aadna waa isugu faraxsanayn mar walbana yacni waxay ahaayeen dad aad mar walba isugu farxan waxaan niyeysan jirnay annaga oo nolol qurxoon dhiganay yacni iyagoo nolol qurxoon dhigtay ayayna rajaysanayeen oo niyeysanayeen mar walba inaan ubad u dhalana waxaan dhalno waxaan nolosha qurxooneyd yacni inay ubad dhalaana noloshooda aad bay ugu qurxooneyd waayo adduunka waxa loo ordayaa waa ubadna haddaan haysan ubadku waa farxadda koowaad ee familka ubad hadduuna maanta meesha jirin waxaan ku yidhi wax farxada way yaraanaysaa laakiin markaad ubad haysato farxadda oo dhan waad haysataa wax kaa dhimanna male ilaahay waxaan rajaynaya inuu farxad ugu dhammeeyo ubadu u dhalo waxaan nolosha quruxdeeda usii gudagalnay waxaan la gaadhay xilligii uu isoo doonanayay yacni waxa la gaadhay xilligii uu soo doonan lahaa ugu dambeyn waan isguursanay waxaaba noo sii siyaaday noloshii iyo farxaddii yacni way isguursadeen noloshoodii 9 bilood xiriirkoogii soo socday way ka midho dhaliyeen waxaana usii siyaaday farxaddii iyo reereyntii ay ku jireen iyo jacaylkii ayaa usii laba jibaarmay waxayna galeen nolol farxadeed marka aad hesho maanta jacaylkan hadda aan leenahay xayb waan ku jeclahay iyo sheekooyinkan khiyaaliga ah been waay hadda la isku sheegay aanusan aaminsanahay laakiin waxaan aaminsanahay marka labada qof ay guri wada galaan ee ay isguursadaan ee isxalaashadaan jacaylkuba inuu markaa bilaabo waxaan hadda la isku sheegay hebel waan jecelahay la leeyahay inay been tahay baan aaminsanahay fahant nolosha iyo farxaddii
badnayd. Waxaan qaadnayd neecow macaan, yacni neecow macaan bay galeen. 2 bilood kadib waxaan u wareegay gurigii aan u dhaxay. yacni 2 bilood kadib waxaan u wareegay tiri gurigii aan u dhaxay ee ninkaygu lahaa ee anigana layga qabay, ama gurigii ninkayga. yacni gurigii waxay u dhaxday gurigii ninkayga ee uu isagu lahaa, ee iyaduna xalaasha u ahayd, ee nolosha macaankeyga ay ku dhisanaayeen. Kadib sheekadu way noo socotaa. Waxaa nolol farxad aanan u malayn jirin inaan heli karo. yacni waxa ay gashay nolol farxada oon u malayn jirin intii ay soo dhiganaysay dee primary ilaa secondary intay dhiganaysay inay xiriirka samaynaynin. waxay u malaynaysay inaynan farxad ay ku jirto, laakiin waxay heshay hadda farxadtii ka qaalisan. waxay heshay qof garab taagan, waxay heshay qof qalbigeyga iyadoon ereyga aan afkayga kasoo bixinin fahmaya. waxay heshay qofkeeda markastaba waxay u baahato hoole. waxay heshay qof siinaya farxad, wax walbana u huraya nafteeda xataa. saa darteed waxay tidhi waxaan kula noolaa farxad aanan u malayn jirin inaan heli karo. kelinimadii hore, yacni kelinimadii hore ee ku jirtay inayna farxaddaas heli karin ayay u malaynaysay oo dhan. intaa ayaan ku hilmaamay. niyay hilmaamay 5 bilood kadib ayaa ogaaday inaan uur leeyahay. yacni 5 bilood ka bacdi waxay ogaatay inay uur leedahay. gabadhii inay uur u leedahay ay ogaatay 5 bilood kadib. inaan uur leeyahay. waxaan rabay inaan u sheego, waxaan la gaadayay waqti ugu dambeyn. waxaanan la gaadayay bay tiri waqti, yacni waxay la rajaynaysay waqti uu faraxsan yahay, uu habi yahay. waxaanan la gaadayay waqti ugu dambeyn. waan u sheegay. wuxuu i dhahay horta waxaan rabaa inaan wax kuu sheego. yacnihii markaan anigu u sheegay isagoo faraxsan aan u sheegay ayuu wuxuu i dhahay horta i dhegeyso, ana waxaan rabaa inaan wax kuu sheego. yacni markaan u sheegay uu arrinkii uu ku farxay, laakiin wuxuu dhahay horta bal i dhegeyso, waxbaan rabaa inaan kuu sheegay. waxaan kuu sheego ha iga nixin. yacnihii waxaan kuu sheego ha iga nixin. anoo faraxsan ayaan ku dhahay ii sheeg. mise igu dhahay horta ma aanaan rabin aan nolosha ku ciyaaro. yacni noloshaada inaan ku ciyaaro ma aanaan rabin. horta talo maxaa dhici doona? ma nolosheedu ku ciyaari rabaa markaanay uurka yeelatay, mise farxad buu usoo wadaa, mise wax kale usoo wadaa? talo maxay noqon doonaa? balse waxaan ka tirsanahay dadka qaba cudurka loo yaqaano HIV/AIDS. wuxuu dhahay waxaan ka tirsanahay dadka qaba cudurka loo yaqaano HIV/AIDS. arrinkaasi arrin maaragtay wax farxad lehna maahayn. anu waxaan u malaynaya wax farxad lah, laakiin wax farxad la maahayn. ilaahayna kaa caafiyaan leenahay. gabadhaasi HIV/AIDS, gabadhaasi shoogii ama se naxdintii ay qaaday, naxdin markii uu u sheegay shoogii ama naxdintii ay qaaday ayay weli iskula maqan tahay. yacni ilaa weli hadda shoogii ama naxdintii ay qaaday ay ilaa hadda weli iskula maqan tahay. xuskeeduna ma joogo. gabadhaasna aan u ducayno. yacni hadda gabadhaas markii uu ku dhahay waxa aan ahay dadka la liita cudurka HIV/AIDS ee qaba xanuunkaas, ayaan ka mid ahay. koomadii ama naxdintii ay qaaday ilaa xuskeygii hadda weli ma soo noqon, wayna ku maqan tahay ilaa hadda. aanan u ducayna gabadhaas inuu ilaahay caafiyo, wiilkaasna inuu ilaahay xanuunka ka dulqaado. xanuunkaas xanuun halis waaye. gabadhaans waxaan leenahay walaal, ilaahay dee qadarteeda yahayd, ilaahay kaa dulqaado xanuunkaas. kolley toole wax ilaahay keenay cidna ma baajin karto. inkastoo uu dee luuqluuq una soo marin oo wax xalaala uu kuu guursaday, adnaguna dee uur 5 bilood aad u lahayd oo dee farxadda aad u sheegtay, haddana uu maaragtay farxaddii waxaas isku bedelay. waxaan rajayn doonaa inuu ilaahay xanuunka kaa dulqaadi doono, inaguna aan wada ducayno. commentigana insha allah waxaan rajayn doonaa inaad wixii rayigiina aad ku dhiiban doontaan. waxaana rajaynayaa sheekooyinkaas way socon doonaan, taxaanana waaye. waxaan rajaynayaa in Instagram-ka
aniga waxaa igu qoran muxuu ahayey mustafi//12 igu qoran. Ama haddaad ku raadiso Timo Legend Timo haddaad ku raadiso waa hele. Waxaan rajayn doonaa inaad ila soo xiriiri doontaan sheekooyin haddaad wax haysaana halkaa igala soo qabta insha Allah. halkaasaan ka wada socon doonaa gabadhaasna aan u ducayno wixii sheekooyin ee dambana insha Allah waxaan rajayn doonaa inaad nala soo wadaagtaan sheekooyinkan halkaas ka sii socon doonaan taxanana waaye waxaan leeyahay saa iyo mac salaam hadduu alla